madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socda midowga reer Yurub uu hogaaminayo ambassador Falciso Garrido oo ah ku-xigeenka wakiilka midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha wafdiga ee ka socda midowga Yurub ayaa kulankooda diiradda ku saaray arrimo dhowr oo salka ku haya xoojinta dimuqraadiyadda Soomaaliland kana qaaday wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya isbedelada siyaasadeed ee Geeska Afrika iyo arrimo dhowr oo la xidhiidha horumarinta bulshada. madaxweynaha iyo wafdigu waxay ka wada hadleen isbedelada siyaasadeed ee ka socda Geeska Afrika iyo sidii uu noqon lahaa mid nabadeed oo wax wanaagsan ku soo kordhiya mandaqada. waxaa kaloo kulankani lagu soo qaaday dhismaha wadada Berbera Corridor ee isku xidhi doonta Berbera iyo Wajaale sidii ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen midowga Yurub. waxaa kaloo kulankaasi lagaga wada hadlay qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka isagoo madaxweynuhu sheegay wafdiga in xukuumadda dhinaceeda mar hore ay iska dhammaystirtay wixii looga baahnaa ee dhinaceeda ku xidhnaa. sidoo kale waxaa laga wada hadlay biyo ballaadhinta magaalooyinka Hargeysa, Burco, Maceeri, Gaabo iyo Wajaale. waxaana xubnaha wafdiga madaxweynuhu ku bogaadiyeen ballanqaadku madaxweynuhu u sameeyay biyo ballaadhinta caasimadda oo dhammayd $1 milyan. ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi lagu soo qaaday wadahadaladii hore u dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii loo soo celin lahaa oo madaxweynuhu sheegay xubnaha wafdiga inay Soomaaliland mar walba ka go'an tahay inay hirgalaan wadahadaladu balse ay Soomaaliya ka jeceshahay hagardaamada iyo turaanturada qaranimada Soomaaliland oo ay ku fogan tahay. waxaanu sheegay madaxweynuhu inaanay Soomaaliya marnaba diyaar u ahayn in la furo wadahadalada labada dhinac. Maxamed Sirike, wararka Bulsha TV, Hargeysa.